ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga kusoo dhawaada channelka Sulfiyaan maanta waxaan idin la qaybsanaa hadii Ilaahay yiraahdo alaab yar quraac yar oo aad u fudud aadna iisoo maasha Allah tabarakallah haddaan bilaabanayna insha Allah waa ila arkaysin qaabkii aan u diyaarina hadii Ilaahay yiraahdo waxaan soo ka kooban tahayna waa 3 xabo oo kun subag iyo baking powder salt isweerisa adiga waa arkay 3 xabo oo kuna hadda meesha kusoo jabtay insha Allah waxaan kusoo darsaday bakeeri yariis waayo bakeeriga halfkiis camal oo sonkor ah kadib waxaan isku soo qasayaa sonkorta iyo mataqaana iyo ukunta hadii Ilaahay yiraahdo waxyar baan saas isku soo qasayaa birtaan hadii aadan haysan ama mashiinkan hadii aadan haysan in qaadadaada ku qasan kartaa ama gacantaada wax badan ma u baahna waxyar aad u fudud waxaan kusoo darsanayaa hal koob oo caano qandace hal mar caanaha ma ku wada darsanaa insha Allah tartiib aan ugu darsan doonaa markaan bur ku daro waxaan kusoo darsaday butter ama subag aan kusoo darsaday waxyar oo isbaana waan kusoo darsaday sidii cusbada aad u jeceshahay waxyar oo aad iyo aad u yar baan kusoo daray kadib waxaan intaan haddana saan aan qaadada isugu dhex mariyay kadib waxaan kusoo darsanaa hadii Ilaahay yiraahdo waxyaabaha waxa lagu kiciyo baking powder la dhahaa kulli ma aqaan ma kala la dhaho Soomaaliga marka waa kana qaadayriisa isagana kusoo darsaday hadii Ilaahay yiraahdo kadib waa kana waxaan ku darsanayaa hadda waxyar oo vanilla ama carfisa hadda saa u taqaan hadii aadan haysan heelka shiidan waa isticmaali kartaa ama waa iska dhaafi kartaa caadi isaga samaysan kartaa intaana haddana waxyar isdhex gelinayaa hadii Ilaahay yiraahdo kadib waxaan kusoo darsanayaa daqiiqda ama burka waxaan kusoo shubanayaa 2 koob hadii Ilaahay yiraahdo oo bur ama daqiiq intaas ka kooban yahay wax aad iyo aad u fudud weeyaan dib badan ma lahan marka waana quraac yar oo mataqaana maasha Allah oo ilmaha mataqaana aad iyo aad ay u jecel yihiin qof weyn waa cuni karaa laakiin ilmaha baa quraacdan daneeyo oo jecel maasha Allah tabarakallah ilaa adaan siino siyaad inta haysanina si waa alaab yar oo mataqaana aad iyo aad u fudud subaxda qaarkood ilmaha quraac dhaga uga siinaysa hadda waa isku soo qasay si fiican kadib waxaan soo saartay maqligan birdaawadiyan dabka saartay oo ii kululaatay dabkana waa inaa mataqaana markaa ku shubaysaa iska gaabisoona aad u kululayn kadib hal qaado aan soo qaatay saana ugu shubaya adiga waa canjaale camal intaa ka shubtay iska dhaaftay mataqaana aadan wareejinin oo kale saana ugu shubaya insha Allah kadib dabkana uu ii gaaban yahay waa inuu aad u gaabnaadaa hadii kale dhaqso ka leefaya oo ka gubanaa marka xoogaa yar dabka iska gaabinaa baaran sugaya baar kadib soo korka mataqaana cajinkii kale oo si fiican mataqaana wali u qalalin waxa la rabaa inaa mataqaana gedisid oo dhinaca kale u gedisid haduu ka qalalo dhinacna ma dumanayo si fiican marka waa kana waan gediyay hadii Ilaahay yiraahdo saana u gediyay kadib waa kaasa waa ka qaaday saana ku wadaya insha Allah hadana xabada labaad hadda saartay qaadada daartaas ku dheeh daaradina waa iska saaraysaa insha Allah taala waa kana quraacdi saaka ilmaha u diyaariyay saana ugu soo diyaarinaya insha Allah way arkaysiin qaafkan ugu soo diyaariyay saana ugu soo duduba hadii Ilaahay yiraahdo oo aan ku soo dhameynaya marka waa kana qof weyn iyo qof yar baa cuni karaa marka laakiin ilmaha ku fiican tahay waxyar oo jilicsan mataqaana ilmaha mataqaana iskaga wanaagsan marka waa kana saana adiga mataqaana aan ku soo wadaya hadii Ilaahay yiraahdo kulligood marka waa kaasa insha Allah saana ku soo wada dhameynaya markii aan soo dhameeyo oo mataqaana soo diyaariyana waa isla arkayna insha Allah qaabkii aan u diyaariyo waxyar buu kor ka soo kacaya marka waa kana tartiib inuu kugu saarnaa waqti siisid oo hadda tiraahdo waftiina uu ka gubanaya marka waa kaas labada dhinac basaan uu soo guduutay ma sha Allah quruxan kaar iska arag iyo fudayd wax waqti badan ka qaadanaya ma ahan waxa maanta dhow taagnaanaysan ma ahan waa wax isla markiiba ku shub oo ka qaad
maasha allah waaye. Marka waa kaasa hadda waa soo dhameeyay saana kasoo dhameeyay insha allah. Waxaan rabaa qaabkii aan u diyaarinay iyo sidii mataqaana u diyaarinayna inaan la qaybsado. Marka waa kana saana kasoo dhameeyay jillee waxaan u maleysaa doolsho camal soft ah waaye aad u jilicsan maasha allah. Ilmo yar ilka leh xitaa wuu cuni karaa aad u jilicsan yahay. Marka waa kana malabaan dusha kaga shubto halaal waxaa jeceshaa ku diyaarsanaysaa. Ani maanta waxaan marinayaa ilmaha aan ugu daraaya waa malab yariisaan dusha kaga shubay macaan kalimo u baahnima taas ku filan. Kadib waxaan ku sameynayaa kareen yaraan kusoo shubay. Kadibna waxaan ugu darayaa fruit qudaartaas ama fruit waa strawberry aan soo jarjaro soo dhaqay sana soo jeexjeexay aan soo jarjaray. Kadib waxaan kala ku daraayana waa blueberry. Marka fruitkuna waa fiican yahay maasha allah aad iyo aad fruitkuna u fiican yahay. Marka waa kana quraacda yar cajiibka ah aad iyo aad fudud asaaka ilmay u diyaariyay maasha allah tabaarakallah. Marka waa kaas ku soo diyaariyay asan kusoo dhameeyay qurux maasha allah tabaarakallah isku dheelitiran tahay fruitkeedii leh koob orange ku siisid kaal iska aragan ku dhahay maasha allah tabaarakallah. Marka waa kaas ka faa'iideyso insha allah ilmaha uga faa'iiday family-ga uga faa'iiday wax fudud. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada aan daawanaysiin walaalahayga qaaliga meel kasta adduunka joogtiin aad u mahadsantihiin. Please haddii ay tahay markay kuugu horeysay oo aan soo booqatid hanaga ilaawin subscribe-ka inaad tiraahdid lana wadaagtid asxaabtaada iyo family-ga gambalelkana afrad saa u ogaato wax walbaan soo galino.